ciidamada Ruushka ayaa gudaha u kala caasimadda Kiev. Intaanan u gudagelin muuqaalka, fadlan haddaad ku cusub tahay page-ka follow dheh. Muuqaalkana like saar siina share garee. Muuqaalo baraha bulshada lagu baahiyay ayaa muujinaya taangiyada Ruushka oo dhex mushaaxaya wadooyinka waaweyn ee caasimadda Kiev. Wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa xaqiijisay inay gudaha u galeen mid ka mid ah degmooyinka deegaanka ee magaaladaasi. Sawirka ayaa u muuqday mid uu qaaday qof ka mid ah shacabka degan magaaladaasi. BBC-da ayaa xaqiijisay muuqaalkaasi inuu yahay mid sax ah oo laga soo qaaday gudaha magaalada Kiev. Dhanka kale, xoghayaha gaashaandhigga UK ayaa sheegay dagaalka Ukraine inay Ruushka kaga dhinteen 450 askari. Madaxweynaha Ukraine ayaa Ruushka ka codsaday inuu xabajoojin sameeyo xilli dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine uu galay maalintii labaad. Ruushka waa inuu inagala hadlaa hadda iyo hadhow dagaalka uu nagu soo qaaday, ayuu yiri madaxweynaha Ukraine. Ukraine ayaa waxa ay sheegtay in ay diyaar u tahay wada hadallo ay la gasho Ruushka iyada oo codsatay in dal saddexaad uu dhexdhexaadiyo. Peskov, afhayeenka Kremlin Liga, ayaa sheegay in hubka dhigista Ukraine ay tahay mid lama huraan ah.